maalin wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka maanta waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh oo loogu hanjabay argudasho siyaasadeed marka uu xukunka wareejiyo iyo cabdullaahi maxamed cali sanbalulsho oo ah taliyihii hore nabad sugidda soomaaliya oo afka furtay si adagna u weeraray madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba barnaamijkan waxaan idinkula wadaagi doonaa warkan yaab kale ee kasoo yeeray cabdullaahi maxamed cali sanbalulshe iyo falcelin adag oo ka dhalatay qoortaydu waxayse kuu sheegin kuuma sheegin aniga qori wata aniga beebihii dalka wata anaa taankiga dalka wata madaxweyne hirshabeelle anaa madaxweyne Soomaali ah ilma adeeraan nahay oo isla soconaa sanka idinka gelinayna ma shaqeynayso barnaamijkeena ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo madaxweynaha Puntland Siciid Danina waxa uu garab lama filaan oo ka helay culimada Puntland oo khudbadihii jimcaha ee shalay si aan hore loo arag ugu garab istaageen xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani karnaa waana isdifaaci karnaa labada dhinacba hore khudbada bilowgeeda waan ku sheegay inaan qof u jeedin magaalada waan difaaci karnaa sababtoo ah sida la isu difaac waan garanaynaa qof keliya kuma xidhna difaacanagu madaxtooyaduna difaaca ma qaabishana siyaasiyiintu uu hogaaminayo xasan shir abgaal oo loo sheegay inay markaasi dadka Puntland dagaal diyaar u ahayn lacagaha ay ka soo qaadeen xasan sheekhna inay u celiyaan culimada khudbadahooda ay jeediyeen ayaanu barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha galmudug axmed qorqorna waa uu isdhiibayo waxaa magaalada dhuusamareeb maalintii shalay ka dhacday kulan sawirkan oo ay kaga wada muuqanayaan maha salaad ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo sidoo kale liibaan shuruq oo ah ninka u sharxan madaxtinimada maamulka galmudug oo sida u muuqataba shalay la heshiisiiyey isaga iyo qorqor haddaba maxaa shalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb wafdigii ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale liibaan shuruq oo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kulamada ku aadan ku dhawaaqidda musharax liibaan shuruq inuu yahay musharaxa xisbiga JSB oo maanta si rasmi ah looga dhawaaqayo magaalada muqdisho warbixinadaas oo idil ayaanu idinkula wadaagi doonaa barnaamijkan ee soo dhawaada saaxiibayaal ninkan aad aragtaan waa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa lagu magacaabaa cabdullaahi maxamed cali sanbalulshe waa siyaasi ka soo jeedo gobolka hiiraan weerar afka ah midkii ahaa ayaa uu ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda inaan looga hari doonin weerarkii barmuudo oo uu ku qaaday dhaqanka ama beesha mursade ugaaskooda iyo sidoo kale salaadiinta dhaqan ee halkaasi ku sugnaa oo uu sidoo kale qayb uu ka lahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre haddaba weerarkaasi iyo weeraradii kale ee ka dhacay magaalada Muqdisho oo siyaasiyiinta mucaaradka uu ku bartilmaameedsaday ayaa uu sheegay in aan looga hari doonin madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaasiga cabdullaahi maxamed cali sanbalulshe xisaabtana ku darsan ninkan waxa ay muddo fog ay wada shaqeeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ahaa shaqsigii ugu dambeeyay noqday taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo markaasi uu ahaa cabdullaahi maxamed cali sanbalulshe marka xilkii marka laga qaaday kooxda mucaaradka ayuu galay waxaana ugu soo hanjabayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay shalay saaxiibo ay ku wada hayeen caburinta siyaasiyiinta mucaaradka marka waxaa la isweydiinayaa sanbalulshe hadalkan oo hadda kasoo yeeray oo ugu hanjabayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii xukunka wareejiyo inaan looga hari doonin wixii dhacay muxuu samayn doonaa yacni su-aalo adag oo arrintaasi ku aadan oo la weydiiyey ayuu ka jawaabay siyaasigan wuxuu sidoo kale uu ka dhiidhinayaa inaysan beesha degtay hiiraan aqbali doonin in cali guulaabe uu xasan uu dhiso maamulka hirshabelle uu yidhaahdo hirshabellena aniga ayaa madaxweyne ka ah dowladda federaalkana aniga ayaa madaxweyne ka ah haddaba warka cabdullaahi maxamed cali sanbalulshe yaan idinka dhabjin waxaan rabaa inaan qaybta dambe idinkula wadaago laakiin markaan aan fiirina dhinaca iyo garowe shalay halkaasi madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani culimadiinkii reer Puntland garab istaag weyn ayay u muujiyeen iyagoo ka dhidhiyey inaanay aqbali doonin dagaal ka dhaca magaalada garowe khudbadii jimcaha shalay marka laga soo baxay culimadu mikrofoonadu waxay u qabsadeen inay ka hadlaan xaaladda ka soo cusboonaatay Puntland waxaana ay sacad u sheegeen in siyaasiyiinta dhahayo dagaalka lagu qaadayo xukuumadda Siciid Dani shaxshaxeeda ayaanu xamar ka soo qaadnay inaysan ka aqbali doonin iyagoo yiri dagaal uma rabno garowe marka
culimada Puntland shalay si adag ay u hadleen madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni isaguna dhowrtus culus ayuu sameeyay marka waxaan rabaa inaan idin wadaago culimada iyaguna hadalladu ay shalay ka jeediyeen magaalada Garowe oo ay ku garbistaagayaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni laakiin ilma adeerayaal 4 daqiiqo ay qabanin suurtagal ma aha inuu nin magaalada degan yiraahdo magaaladan difaacaya oo qori la soo baxay nin kale oo isla magaalada dhinac ka joogan oo yiraahdo maya anuguna ninkaas aan ka soo horjeedayo lacagtii shaah lagu cabi lahaa baan wada suurtagal ma aha anaga shaah la'aan ma nihin deymahana waa iska bixin karnaa waana isdifaaci karnaa labada dhinacba hore khudbada bilowgeeda waan ku sheegay inaan qof u jeedin wad magaalada waan difaaci karnaa sababtoo ah sida la isu difaac waan garanayna qof kaliya kuma xidna difaac anagu madaxtooyaduna difaac ma qaabishana mucaaradkuna difaac ma qaabishana madaxtooyaduna difaac ma qaabishana hadday labadoodu heshiin waayeen dee halkaa ha tageen bannaanka meeshaa boolis ka shays waa haddii uusan qabiil lahayn oo loo ogolaado labada nin ee magaalada isu baxbaxsanaya ha soo baxeen masaajidkan ha yimaadeen albaabadaasaan u xidhaynaa midkii reeya ha noo yimaado soo gar ma ah annaga raggayga masaajidda joog weli nalooma imanoo lama odhan noo garnaqa haddii naloo garnaqilaa masaajidkan aan ku xidhnay labada nin midkiinii soo reeya ha noo yimaadaan dhihi lahayn amaa wiilasha hubka wata maya anigu waxaan leeyahay maanta mucaarad iyo muxaafid dagaal ugama baahnin waxa aan ka rabnay inay Puntland keenaan dagaal ma aha ninka maamulka joogana inuu dagaal curiyo uma baahnin inuu dagaal abaabulo uma baahnin inuu dagaal ku baaqo uma baahnin waa laga yaabaa nin mas'uul ah oo meel sare jooga inuu yiraahdo ninkii hebel iyo hebel hadday magaalada yimaadaan xabad wajiga looga dhufto soo dhagiina kuma soo dhicin suurtagal ma nin magaalada u dhashay in madax xabad looga dhufto dhinaca kale waxaan suurtagal ahayn nin magaalada u dhashay inuu yiraahdo qori baan keenayaayo waxa weeye hubka ku yar Puntland kuma yara askarna kuma yara qorina kuma yara askarna kuma yara Puntland hub iyo askar uma baahna haddii hub iyo askar ay wax tarayso wuu yaalla hantina dad kale ugama baahna halkan hadda controlka ka sokaysa billions baa lagu maalgeliyay real estate maxay magaalada ay tuuladan magaaladii maxaan ku dhahdaa control ka sokaysa guriyasamo goolis iyo banki salaam iyo maalin dhaweyd imisay maxaan ku dhahdaa ay fureen iftitaax ku sameeyay imise milyan bay 500 milyan bay amal waxa weeye say guriyihii u diyaarinaysa inba waxa la yiri magaaladii waa guurtay yaa degaya bay leeyihiin controlkii hore waxaa laga dhagax dhigay oo anigu aan goobjoog ka ahaa xaafad loo bixiyay Istanbul deegaanadii kalena way socdaan ilma adeerayaalo aqliga aanu celin xagga quraanka waan garnaqsan karnaa waan isu iman karnaa hoteelada laga soo baxay madaxtooyada hal isu yimaado hal wada hadlo laakiin magaalada dhaxdeedii in jantaal la isaga tuuro ama wax dagaal dhalinaya la isaga tuuro hal qaxa laga wadaa marka anuguna ka Axmed ahaan waan garnaqsanayaa baa idhi aniga sanadkii kontonaad baa ii socdo oo qax sanadkii kontonaad baa ii socdo hatta aniga iska kii daaye aniga dartay magaalada u daaye
sanadkii kontonaad baa ii socda gobol Soomaali ay degto oonan soo marin ma jiro kontonkaas sano gobol Soomaali degto waxaan sheegayaa shanta Soomaali dhulkii la dhihi jiray gobol ku magacaaban oo lugta soo marin ma jirto anigoo Malaysia joogo oo jaamacad ka wada doctorada ka wada yaan Soomaaliya saa u fiiriyay rag marka nala jooga inay fadhiyaan waa laga yaabaa inta Soomaaliya saa u fiiriyay markaan soo dhameynay xagee degtaa baan ka fikiray xagee degtaa baan ka fikiray markaan laabatay waxa ii soo baxday meesha kaliya ee day kara inay garwata sababtu maxay tahay haddaa safar galaysid hal safar baa galaysaa Soomaaliya haddaa safar u galaysid hal safar baad u baahantahay haddaad Puntland gudaheeda u safaraysid hal safar baad u baahantahay haddaad caalamka u safaraysid hal diyaarad baad raacaysaa waxa kaloo dhanna Soomaalidu lama qabto ee magaaladan ay leedahay haddii hadda la yiraahdo magaalada laga qaxgeen aadaya anigu ilaa wixii kale lacagtan soo mariya xageen aadaya marka waa naga gardarantiin marka waa tahay wixii kaaga baxay culimada hadalkooda aad ka hooseeyaan ugu reebi kartaa dhuusamareeb waa lagu kala baxay galmudug galkeediina waa uu soo xirmay qorqoor si rasmi ah ayuu u wareejiyay xukunka liban shuluqna waa la guddoonsiiyey kursigii oo in muddo u daba fadhiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta muqdisho munaasabad weyn ayaa ka dhacayso oo lagu dhawaaqay musharaxa xisbiga JSB ee maamulka galmudug iyada oo aan wax murana ka taagneyn in liban shuluq uu yahay musharaxaasi oo aysan ciidamo ku haysan qorqoor iyo isaga shalay ayay isgacan geliyeen madaxtooyada galmudug ayaana lagu qaabilay liban shuluq heshiisiintan waxa gacan libaaxle ka geystay taliyaha hay'adda sirdoonka nabadgelyada qaranka Mahad Maxamed Salaad sidoo kale kulanka lagu kala saxiixanayay in liban shuluq loo daayay inuu noqdo musharaxa dowladda federaalka ee galmudug waxa goobjoog ka ahaa libanka laftiisa iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ugu dambeyntii dhuusamareeb waa laga soo dhamaaday qorqoor waa uu isdhiibay iyadoo oo galkii galmudug dowladda albaabada isugu soo dhufatay kaliya hadda waxaa dhiman in doorashada galmudug lagu galo musharaxa ay dowladdu doonaysana halkaasi la geeyay marka indhaha ayaa lagu wada hayaa galmudug wixii ka dhaco artaada ku aadan maanta ayaana lagu dhawaaqi doonaa liban shuluq haddaba artaada ku aadan galkii galmudug ee dowladda soo xirtay hoos ayaad nagu reebtay gudaana qaybta inta ayaan jeclahay inaan ku soo abmeero mid lacala barnaamijkan intaanu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo warsan qoortaydu waxayse kuu sheegin kuuma sheegin anigaa qori wata anigaa beebihii dalka wata anaa taankiga dalka wata madaxweyne hirshabeelle anaa madaxweyne Soomaali ah ilma adeeraan nahay waa isla soconnaa sankaan idinka gelinayna ma shaqaynayso